qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag ayaa maanta cabasho la hortagay xarunta maamulka gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo isla markaasina eedeymo u soo jeediyay madaxa sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee Sdf ee gobolada Sool iyo Sanaag Faysal Baraare oo ay sheegeen inuu waxistoon bari kula kacay mushaaraadkoodii waxayna ay shaqaalahani xuseen inay mareen shuruudihii lacag bixinta ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee Sdf geesta kalena waxay shaqaalahani sheegeen muran dhaxmaray iyaga iyo mas'uulka aakhirkiina sababtay inuu mas'uulkan ula soo baxo baaskoolad waa sida hadalka u dhigeen hay'adda Sdf oo sanadkii hore naga saxeexday agreement-kii hore naga baxday kii dambana hadeer bilaabaysa hadeerna rabtay inay naga saarto oo lagu dacweeyo oo baaskoolad maanta lagu soo baxay marka madaxweynaha waxaan u diraynaa arrinkayga hadaan si degdeg ah wax uga qaban inaan anagu aan iska qabanayno meel aan meel iska saarayno shaqaalahana caafimaad inay noo eego oo noo dixgeliyo oo naga qabto wasaaraddan tuugada ah ee Sdf la socota ee naga qaaday lacagtayadii hore agreement-ka haddana aanu agreement-kiina laga diiday madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad soo dhex gasho cusbatalka wasaaradda cusbatalka inaad soo dhex gasho wasiirku xitaa waa ogyahay waxba nalooma qaban sanad iyo 4 bilood oo hore aan saxiixnaanu laanay madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa inaad wax ka qabato wasaaradda caafimaadka anagoo shaqaalaha inaad noo doonto xaqayagii xuquuq waxaanu mudane Muuse Bixaad ilma weelana lagu wada sida carruurta yar yar oo xaqayagii maqan yahay oo agreement-kayagii lacagtiisa ay maqan tahay ab sanad iyo 4 bilood uu naga maqan yahay sanad iyo 4 bilood ay naga maqan tahay markaan xaqayagii weydiinayno inuu baraaro Faysal Baraaro maanta baaskoolad noo la soo baxay oo yiri waydan leenayaaba ilaahay baa laakiin sanaga badbaadiyay sidoo waxayagina waa joogay si toos ah u soo farageliyo madaxweynaha Bismillahir Rahmaanir Rahiim waxaan leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bixi Cabdi anigu waxaan ahay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag hay'adda shaqaaluhu qiimeysay imtixaanka ka qaaday waqtigii qiimeynta waxaan ku yiri waxa dhacday in hay'adda Sdf ay noo timi sanadkii hore ay tiri shaqaalaha wixii bayroola ee mushaharka dawladda qaata waa gunaynayna haddii ay shuruudaha buuxiyaan shuruudihii waan buuxinay waxaan ku yiri agreement-kii waana loo keenay waana laga saxeexay akooma furta baa la yiri waxaan ku yiri maantana waxaan ku yiri shalabaan فيمي وحرينتي هران وحسدا مركان برا صابك إيو وانو تغني نسدوها لو وانو شاقني وحن كن نسدوها يجي نمقنعن مركينا برارنا وحن كنا لينا برارو ضل كمسلنا هذا وقشة هذا وكيلسه باستول بابو صبحي لحد أساسا أنا وحن كل واحد كمقارنات waxaan ku waxaan leeyahay anigoo ah wasaaradda shaqaalaha caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan Ceeri Gaabo inta badan muddo badan ilaa maanta dadka la soo galay u shaqeynayay qoladii hay'addu shaqaaluhu imtixaan ka qaaday aan ahay saacada laga bilaabo in ay wasaaraddu meeshii doonta ay geyso sanadkii aan Sdf u saxiixnay waxaan ku si degdeg aan u helno ee waliba lagu waajibaa soo lagu soo baax wasaaradda hagaysa cid doonta qorto dhinaca kale mar aan isku daynay inaan wax ka weydiino eedeymahani Faysal Baraare ayaa inoo suurta galin isagoo xilligaasi ku sugnaa qaybta booliska ee magaalada Ceeri Gaabo Adnaan Cabdirashiid Ali telefishinka caalamka Horyal 24 TV Ceeri Gaabo